السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وناكسن ميل كستا أو جوجتان هالكني وكالسن تي في مقالة ميابليس هذا ما أنت هالكن وحا يقوم مرتيا هدي أنكسو بلابو دينعا بدحدا عبد الرشيد حنبوسي oo ah gudoomiyaha khaatimo ee USA iyo waliba dhinacan ka soo xiga Cabdirashiid Macallin Faarax oo kamid ahaa asaasayaashii G11 khaatimana ku asaasay magaaladii Taleex haddaba waxaan weydiin doonaa su'aalo badan laakiin intaan su'aalaha u guda gelin waxaan weydiinayaa shir ay kaga qayb galeen magaalada madaxda Kenya ee Nairobi ayaan waxaan weydiin doonaa bal waxa ka soo baxay iyo shirkaasi wuxuu ku saabsanaa bal aan u gudbo Cabdirashiid Xambuus oo ah gudoomiyaha Cabdirashiid shir ayaa ka qayb gasheen magaalada Nairobi shirkaas oo inuu ku socday maalmo inuu ku socday shirkaas muxuu ku saabsanaa yaasiin aad baad u maasantahay adiga iyo baahda Kalsan TV casuumada noo fidisay waana arrin muhiim ah in dadka loo shaaciyo shirka Nairobi ka dhacay ujeedadiisii shirku ujeedo fiican buu lahaa iyadoo magaca khaatimo lagu tagay meesha oo la isaga yimi caalamka dacaladiisa kale qaaradaha Yurub iyo Mareykan North America Canada iyo dhulkan aynu joogno Ali Cabdirashiid baan kaga qayb galay Arabta iyo dalka Soomaaliya gudihiisa dadka yimi oo inkastoo cid kastoo la filayay inay tala ka keeni karto sida khaatimo arinteedu meesha maanta taagan tahay hore looga qaadi lahaa ayuu shirka ujeedadiisu ahayd iyo wada tashi buu ahaa shirka dib wada tashiga khaatimisteeda Soomaaliya arrimaheeda marka shirku tashigaasi waxaad ka wadaa khaatimo qaabkii ay siyaasad ahaan u dhaqaaqi lahayd yes waayahay su'aashaada aan sii daba galo markii aad shirka ka soo baxdeen kadib waxa dhacay in madaxweynaha khaatimo Ali Khaliif Galeed oo rag wasiiraa u soocay inay ka qayb galaan shir Somaliland iyo ka dhaxayn doona iyo khaatimo أنا كوكب تين مقالة عينها كالفتي سنكسر هذا قدين شركة نيروبي هاي خير كشيء مسوى الشركة قضوا بوضن بالغو فلنقي وحولي بقى يكون بس كرسين خاتمه ولا هو وسير هذا خاتمه واتشوجين وسير باتشوجي ورنتي طلبة الدولة المسؤول وجاها الحين على خليف سو up to date بها every minute شيء سو صعدة يقضوا بدل الاسكوها يوحى كسب بحي marka shir dawladdu ka maqan tahay ma ahayn go'aanka ka soo saarayna ka soo baxay ama juhdiga la gelinayaba waxa in dawladda lagu taageerayo ama tala lagu kordhinayo ama wixii wax qabadaha ee laga geysan karo lagu kordhinayo buu shirku ahaa marka madaxweynuhu dawladdan isaga awood u leh inuu haduu meel tagayo ama wada hadal sameeyo ama dawladdu sidee u hawlgalayso waxa ka mid tahay shaqooyinka ay u xilsaaran yihiin tan wax yar ku daro dawladdu iyada u egman fulinta iyo waxay qaban lahayd لكن شركة أنت بدنا واحد أقول لك فجوري وحيالها استراكشرك هي مسيرة هي وحيالها مدن إن لقبته وحكومة اللي جبر روتينيو هي وحي أنا كوكا بكرة ما دابا أنا ضد واحد مدد نكسر شرين هاي يلا بدنا استجنميد يجونا كنتي أي آد جودها ومشغولين إن وحي أنا كوكا بكرة أنا كوكا بنطلع وحيالها مسيرة قابين تيدنا أنا تلوين واي هاي عبد الرشيد معلم عن سؤال كوكو حجيو إن سيدي وأركتان شيء لبنان إن مدحوينها إن على خليف قلاد وكل واقع إنه وده هذا لا يقلي دونه سوماليلاند. الهرسون اللي ياسين شيء لبنان هذا ما شرته مرة هذا شرتي هذا ونضد أضياله وطلب حيانه هاي مدحوينه سان هذا بكون شيء حكومة دوية سجى مدحوينه كبرلمان بشرة استراكشر هيكل قرن بمشي كشرة iyaga dadku u wakiisho kalsooni u siiyay inuu arimaha day to day u fuliyo ama haddaad leedahay tegitaanka caynaba oo runtii aan oran karo wax aad u weyn maaha waa arin yar oo ku kooban oo arin khaasa ku kooban oo ah in wada hadal in la furi karo in la cadeeyo oo aan wax inta dhaafsanayn aan jirin waanu ku taageersanahay horeyna موضوعا إن بدن بالسود دراسية قرالة بدن حتى شركة نيروبي وكسر سعري جدية مدينة إيو وده هذا اللذا وده دقي ما يو وحيالها وين نهرية لراعيه لكن سه مدحوينها يو حكومة دقان كان يقاتني عين بكو تجين أنا وهدان هيدت كي هوري يو ضياشي وكتاجرسنا وياي أنا قدومي عبد الرشيد سو أركتا أديك لفتجاجو إن وده هذا الكاسي أو كفرمو Somaliland iyo khatum
horta waxaan kuugu bishaaraynayaa shirkii Nairobi qodobadii la isku raacay ama laga soo saaray waxa ka mid ahayd in Khaatumo ay la geli karto wada xaajood cid kasta oo dani kaga xidhan tahay oo danaha Khaatumo fulin kara ama hore u wadi kara dhinac kasta ha noqoto dhinac xidhiidh beelaha kale ama maamulada kale inagu xiga ha noqoto dhinaca Itoobiya ha noqoto dawladda federaalka wax weyn kaga xidhan yihiin oo dawladii qaranka u ah ummadda Soomaaliyeed marka halka go'aamadii laga soo saaray bay ku jirtay oo dawladdan lagu dhiirigelinayay inay wixii wanaag keenaya inay la gasho wada hadal marka shirkaas sidaa wuxuu daba socdayba go'aankii ka soo baxay runtii midda kale waxaan kaloo ku darayaa tigitaanka Caynaba timingkiisuna aad buu u fiicnaaday xamar iyadoo falaqadii lagu jiro dawladaha Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa iyo baarlamaankoodii iyo wixii oo anaga hadaan nahay reer Khaatumo aan idinoo fadhiin miiska halka wuxuu muujiyay shucuur cusub oo anaga maaragtay xuquuqdayadii marka lagu cadeynayo waayahay gudoomiye anshaashan ku siraaciyo sida aynu ognahay Somaliland waxay ku dhawaaqday inay ka go'ayso Soomaali inteedii kale sida Khaatumo lagu yaqaan Khaatumo hadii jeer wax ka shaqeynayay midnimada Soomaaliya haddaba ma Khaatumo iyadu rabta hadda inay la go'do Somaliland Somaliland ayaa iyada laftigeedu rabta midnimada Soomaaliya yaa labadiina soo dhawaada ma Khaatumo soo dhawaatay mise Somaliland horta saad ula socotid Somaliland iyo reer Khaatumo waa dad isku dala isku deegaana oo isdhinac yaala weligoodna wax waliba ka dhaxeeyeen marka wada hadalka ay maanta fureen go'niinka heerkiisa la islama gaarin ama wali maaragtay heerka talaabada looma gudbin hadda waxa weeyaan bal horta in hostility la yara joojiyo oo wada hadal la bilaabo macaamil la bilaabo iyadoo laba maamul la yahay taasaa guula moogtahay oo dadkii shakiga laga kala saaro iyaguna ay markaa kalsooni helaan annana aanu kalsooni ka helno imika waad ogtahay gobolada Sool ciidan aad u far badan baa 13 goobood baa ciidanka Soomaaliland fadhiya meel kale oo Soomaaliland dhulka sheeganayaan ciidamo inta laga fadhiyaan ma jirto marka waxa loo baahan yahay marka hore in la goodwill la tuso wax la yiraahdo rabitaan nabadeed iyagana inay ka timaado weeye annagana naga timaado annagu weligeed rabitaan nabadeed waanu rabnay dagaal maanu doonayn dhulka iyaga ciidamada Soomaaliland iyada markiiba si ay maamulkooda ugu fidiso keentay saan ku sheeg 13 goobood bay fadhiyaan ciidamada Soomaaliland imika maanta oo dalka Soomaaliya kamid ah marka iyaga laga doonayaa xagga iyaguna ay muujiyaan wanaag siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed inay nabadgelyo diyaar u yihiin way yaasin taas waa la oga raaliya markaad leedahay idinka ka tanaasulay wadanka Soomaaliya in la kala gooyo anagu 2012 Khaatumo waxaan u sameynay anagu ugu magac daray gol Khaatumo oo awal basaligu ahayd isku soo boodka USB midnimada wadanka Soomaaliya in aanu ku ilaalino integrity-ga iyo kala goyn la'aanta wadanka Soomaaliya halkan baan galay aad iyo aad u dheer oo wax nala galay aanay jirin waxaan ku rajo weyneen qarankii Soomaaliya markaa soo noqday oo la amaamuday inuu door facaal ka qaato sidoo hawsha wax uga qaban lahaa anagu colaad uma qabno lalaha waqooyi Hargeysa jooga wax colaad uma qabno dad ehelo deegaan iyo dhaqanba naga dhaxayaan weeye laakiin waxa jira inxiraaf xagga caqadiga ah oo go'itaankan iyo hawlo badan iyo cabashooyin badan oo runtii ay qabaan walaalaha iyaga Puntland waxaanu ka filanay laftoodu inay hawsha nagu taageeraan maadaama xaaladda aanu ka hadlayno iyagu ay abuureen waayo dagaalkii qabaa'ilka Soomaaliya ka dhacay laascaanood qabiil laguma qabsan laascaanood system dadkii oo degan oo Puntland la yiraahdo oo lala dhistaa gacanta loo geliyay subax baanu soo kacnay Soomaaliland bay ku wareejiyeen walaalaha marka waxaan ka sugaynay laba qodob number 1 inay magaaladii caasimadii soo celiyaan wadankeena midnimadiisa ay qayb ka qaataan sidii markii hore Puntland loogu dhisay number 2 haddaanay samayn karin inay naga caawiyaan marka annaga in aanu ka gelgelano oo aanu mustaqil ahaan u istaagno Sool iyo Sanaag iyo Buuho lacayn may sameeyeen waxay sameeyeen in ay tansiiq iyo wada shaqayn dhab la yeeshaan Somaliland dawladda federaalkuna runtii sidaas ka sii fog ay Somaliland garabka u saartay iyo Puntland annagana waxaan ku soo dhacnay meel dhexe qarannimada marka Soomaaliya iyo midnimadeeda anagoon inkarsaneen anoo qaba waliba inaanay Soomaaliya meel kale aadi doonin anoo saa qaba runtii haddana annaga u dhimanay annagana la ku laayay kuwa nagu laayayna waa koonfurta weeye waa Puntland iyo dawladda federaalka dawladda federaalka iyo Puntland ay doonayaan iyo Somaliland anagoo laba gobola
oo runtii weliba dib uga dhacay 20 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya wixii ka socday anagu umana istaagi karo umana dagaalami karo sidaas oo ay tahayna haddana waxaan qabaa inaan Soomaaliya meel kale ay doonin insha Allah waayahay aan ku weydiiyo gudoomiye su'aashan intaan aan u gudbin Cabdirashiid Macalin su'aasha aan ku weydiinaya gudoomiyaha baarlamaanka ee Khaatumo mar uu hadlay wuxuu cadeeyay imaan lagala tashan arintan lagu aadayo Aynaba maalintii ka dambeysana iyagoo wada fadhiya ayay shir jaraad qabtay isaga iyo madaxweynuhu maysan hayn shacabkii laftigiisu Khaatumo kacdoon badan buu muujiyay imaan waxaan aanay ogeyn lana socodsiin maysan hayn arintani arin degdeg ku ah reer Khaatumo ahaan marka dawladda Khaatumo loo eego imaan shacabkeedii iyo dawladdeedii laftigeeda aan ka dhaadhicin wixii intaan heshiis la gelin dawlad goboleedyada kale Soomaalidu waxa ku mahmaadaa hubsiimo hal baa la siistaa horta saad ogtahayba wuxuu markay siyaasad saa u xamaasadaysan tahay waxaa loo baahan yahay in la siiyo taxadar badan nimanka meesha laga diray Buuhoodle ee waftiga ah masaafay sii marayeen Caynabo iyo Buuhoodle waa dhul masaafo ah oo xoogaa loo kala soconayo dhulkana colaadaha ka jira iyo nabadgelyo la'aan iyo xasiloonidii weli dadka kalsoonidii iskuma soo noqon marka aniga waxay ila muuqataa dawladda Khaatumo iyo madaxweyne Cali Khaliif mishanka uu diray in qarshoodi uu ahaado si iyadoo aan laga hor dhicin wixii aanay dhibaato u keenin oo ama waftigii dhexda dhibaato uga la kulmin ama dadkii booq markiiba bilaabin iyadoo aan cidiba kulmin qolada kaleba I don't think inay faafiyeen Hargeysa markay ka imaanayeen Caynaba imaanayeen marka adigu waxaan halka ka muuqatay dad isku heelan oo rabay inay markiiba degdeg u kulmaan inay ahayd iyadoo Cali Khaliif aan ogahay siyaasinimadiisana xamarna uu dowladtus ay u ahayd oo haddaad dafiraysid adeer dal iyo dad baan haystaa meeshaan doono aan u jahayn karo marka runtii gudoomiyaha baarlamaanku maanta ay wada fadhiyeen oo press conference soo saareen madaxweynihii Cali Khaliif ku-xigeenkiisii Cabdullaahi Bacgalule iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo wada fadhiya oo mowqifkaas isla qaatay oo taageero buuxda is siiyay yiri waa raacsanayd talabadii maalinta dhow dhacday yaasin adiga raaliya hadda mid ku daro la yaabi maayo dadka Sool Sanaag iyo Cayn reer Khaatumo inay mas'aladan ay ka taxafudaan lama yaabayo sababtoo ah qabba ku jira dad 21 sano Ingiriis la dagaalamay dad qaranka Soomaaliya macna badan ka lahaa dad iyaga aan marna la qahrin oo iyaga ay noqon jireen dad runtii talo loo soo celiyo in intay wax isku dayaan haddana wixii sida isugu dayeen ay u dhici weydo may filin inay marka ka hadlaan xaq bay u leeyihiin laakiin meesha waxa ku jirta hal qodob oo aan rabo inaan runtii iftiimiyo qodobkaasi waxa weeye markii la saxano la qabsaday dhibaatada ugu dhacday waxa weeye taladii anagu aanu lahayn gacanta waxaan u galinay Garowe markaanu gacanta u galinay waxa isu jawaabaya nin Hargeysa jooga iyo nin Garowe jooga oo aan metelin shacab halka degan waxaanu weynay codkayga wax muujiyo oo xataa adduunka u sheegay dhibkan haysta oo iyagu ay ku heshiin markaas kadib waxaanu markii ugu horreysay sameynay NSUM urur la oran jiray oo markaas Cismaan Badawi iyo ay ka ahaayeen odayaal oo justi ay ahayd oo kaliya warsida codkiin u baxaaba waan ka soo gudubnay SST baadana la sameeyay waan ka soo gudubnay kadibna Khaatumo la sameeyay waxyaalaha marka haddaba ku cusub dadkayga waxaa ka mid ah oo laga dhaadhiciyay dad fara badan oo ay ku khaldameen markay masiir noqoto in aan qof Khaatumo ah ama qof uusan runtii masaa'il masiiri ah sida in lala hadlo Soomaaliland oo kale inay tahay lama taabtaan taabu oo wax xoogay qofkii Soomaaliland la soo qaada hadal baynama Faroole markuu ahaa Garowe qablaha ka ahaa Hargeysa nabad sugudiisa secret service-kiisa ninka haysta iyo Soomaaliland bilbil wada fadhiyi jireen Hargeysa marka dagaal ka dhaco urur oo kale wuxuu oran jiray argagixisa la dagaalanta Soomaaliland wuxuu ku oran jiray dadka walaalaha ah xamar marka la joogo alliance ma aha hadda uu musharax yahay codadka ugu badan ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka filaya waxa weeye waa nimanka waqooyi ka imanaya ee Hargeysa inay codka dhan siiyaan oo xuluf leeyahay Hargeysa waa tuu tagay isagu nimanka Garowe jooga waxa boqolkiiba boqol ay heshiis ku leeyihiin Soomaaliland in aan Khaatumana jirin dadkaasina marna masiirkooda isaga tashan maxaa marka ii diiday anigu in aan masiirkayga iyo destinationkayga aan kala hadlo dad walaalaha iyo darisnahay oo dhaqan naga dhaxeeyo oo ka dhigay taabu inaan anigu ka hadlo oo aan ka hadli karin looga dhigaya oo ka Garowe jooga aan uga hadlaya nimanka Garowe jooga ee u dhashay mandaqada Sool Sanaag iyo reer Khaatumo the only thing oo ay ku guuleysteen waxay tahay inay halka la fadhiyaan waxa uu loo socda ilaa dhaywan Hargeysa therefore qofka shacabka waxa laga yaabaa dad badan oo iyaga ay si gaar ah isugu xiran yihiin inay ka dhaadhiciyaan waxaan idin sheegnay Hargeysa u socdeen oo haddaan u soconana Hargeysa waa dhul Soomaaliyeed oo umma Soomaaliyeed dhaqan iyo diin iyo waxa naga dhaxaysa dan
wax badan baanu ka wada hadli doonaa iyagaa u baahan in loo gurmado annagaa u baahan in loo soo gurmado qaranka Soomaaliya gurmad nooga wada baahan waxaasoo dhan anagoon cidna marti uga noqonayn baanu waxaanu leenahay waanu la hadlaynaa cid nooga dhowna ma jirto inaan isfahamno waanuna isfahmaynaa haddaanu si sax u wada hadalno waana bilowga hadda aanu ma ballan qaadaya waxyaalo fara badan oo soo socda ma ballan qaadaya laakiinse bilowga hadda aanu galnay ma aanan xujoobine waajibna saaraa un baa daan khatwana go'aan way Cabdirashiid sax haddaan ku siraaco wada hadalka Somaliland la galisaan imay sax tahay miisan ahayn arinta ay midnimada laga hadlayo imaan iyaguna ka tanaasulin imay go'aan idinkuna aydan ka tanaasulin imaad midnimada raacdaan si hawshaasi ay soo waafajinaysaa dad nin baa yiri waraga soo socda maxaan kan inahnaa markaas waxa inagu yiraahdaan been wax ka oran doonaa waxyaalaha waxa weeye wada hadallada marka la gelayo qawaacid bay leeyihiin number 1 maxaynu doonaynaa inaynu horta inagu aynu hor dhigno maxaynu iyaga ka filaynaa maxaynu inagu qaadan karaa maxaa rag layda oo aynan jari karin ummadeena maxaynu ku qancin karaa iyaguna dad bay leeyihiin anagu dad baan leenahay qol kastana duruufo iyo dan gaar ah wadataa waxyaalo liis fara badan baa noo qoran oo ay ugu horeyso ilaa iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyad baan ka saaran iyagana waxa ka saaran mas'uuliyad waxa weeye xanaaq baa laga yaabaa in dad fara badan oo dadka waqooyiga Soomaaliland hadda ah in la geliyay iyo wixii dhacay in la buuxiyo dadkii dadku inay cadhaysan yihiin iyo inay masiiri gaaraan way kala duwan tahay annaga baa shacabkaygu wuu xanaaqsan yahay oo maanta inaanu Somaliland oo dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay siyaabo fara badan ummadda tacaddi ugu sameysay xuquuqdeedii u duusiday lacag fara badan oo adduunka waxa la bixiyo charity-gaana aanu u tiirinayno inaanu la hadalno dadkayga dhib ku tahay laakiin waxaan u bareernay in aanan aqbali karin xaaladan anagu aanu ku jiro Soomaaliland ku jirto inay sax ahaato hadaan anagu hadli karo weyn cid wada ka jirto iyagana waxa laga filayaa diyaaradan Hargeysa la saaray dadkan yar ee generation ka loo akhriyay si loo mideeyo nabada loo sugo khuraafaadka Soomaaliland caybka laga dhaadhiciyay waxaas oo dhan in la qubo oo reality wax lagu dhiso Nelson Mandela 27 years ninkii xabsiga galiyay intuu gacanta soo qabtay wuxuu yiri kaale ila dhiso maamulka si aan u wada jiro win situation waxa loo baahan yahay waxa weeye in la qubo wax allaale wixii caadifad iyo qusacad balaada ummaduna xaqiiqada wajahdo si marka geeska Afrika marka aynu macna uga yeelano waayahay gudoomiye Cabdirashiid sideen la socono sida Cabdirashiid ba sheegay shacabka khatumo waxay u sheegtay imaane marra aan yeelaynin go'itaanka iyo midnimada Soomaaliya sidii ku sameysatan ay saaxayd in dhulka difaacayso in midnimadii ka shaqeynayso Somaliland dadkeedu wuxuu sheegtay 20 sano iyo ka badan buu sheegay ee ku akhrinaysi inay ka go'een Soomaaliya inay yihiin dawlad la ixtiraafay inay baasaboor leeyihiin sidee labadaas dawladood u wada hadli karaan oo u kharashin karaan haday wada hadleena si dadkooda uga dhaadhicin karaan inay nin walba teedi kale uu ka tanaasuli karo anu waxaan taaganahay sidaan kaga warhayo oo aan kalsoonina ku qabo madaxweyne Cali Khaliif inuu iyo odayaasha kale talada dalka haya aan ku kalsoonay inay yeeli karaan waxa weeyaan waxa la eegayaa war masiirka reer Khaatumo SSC dadka degan xageebu ku jiraa xageeba iyaga dani ugu jirtaa xageeba noloshoodu ugu jirtaa mustaqbalka dheer iyo ka dhowba goolku waa kaas goolku ma aha Soomaali weyn iyo Somaliland goolku waxa weeyaan danta reer Khaatumo xageebay ku jirtaa weey Somaliland bay ku jirtaa miya meesha ku jirta ayay ku jirtaa danta Khaatumo ma garatay marka barigii hore halganka maxaa loo galay dadka reer Khaatumo waxay soo arkeen inay dalkooda taladiisa iyagu madax banaanadaan oo ay nidaamkii dawladda iyagu ay iskoodu dhistaan tiina way jirtaa marka waxaan ugu bishaaranayaa dadka reer Khaatumo inaan Khaatumo isdhiibin ee meeshii dani ugu jirto maanta anigu walaalkaama tegin waan danaystay weeye ujeedadu ma ogtahay marka ninka Soomaaliyeed 25 sanadood Soomaalinimada igu hilin waaya calankii buluuga iyagoo gabdhaha iyagu wiilasheedu xiran yihiin xabadda la dhacay waxiila ma helin marka ninka maanta noogu caroonaya Somaliland baad la hadlashaan la go'aasaan walaal uu naga gardaranaya Somaliland ma aha bahalana cunaya waa walaalahayo waa dadkii nala deganaa waa dadkaan abtiga iyo soo ahayn waa dadkaan waxooda cuninay ma garatay ma aha nin maanta garow jooga xamar jooga inuu waxa anaga danta noo mar walba oo miiska soo saaro waayahay Cabdirashiid macallin aan ku weydiiyo su'aashan dadyo badan ay isweydiiyaan had iyo jeer wax la yiraahdo Khaatumo dhinaca Puntland
ayay had iyo jeer hadallada kulkulo hadday u dhaafin lahayn medias u dhaafin lahaayeen hadday dhinaca kale u dhaafin lahaayeen had iyo jeer waxay diidan yihiin dhinaca Puntland waxaana sida ay dadweyne badan ay aaminsan yihiin inay khaatumo laftigeedu dhinaca Somaliland u xaq jirto maxaad qaabka wada hadalka laftigeeda Somaliland buu aadeen aad Puntland laftigeeda ula hadli weydeen wada hadalka uga shaqeyn weydeen si ay isku soo dhawaysan lahaydeen uga shaqeyn weydeen oo dhinacan kale hadda keenay imaad Somaliland adan instead of Puntland wada hadal la gashaa waa su'aal fiican waxaan runtii anigu oran lahaa inkii la oran jiray Cabdullaahi Macalin Doodaan baa gabayga la garnaqsi markuu tirinayay waa gabay macruuf runtii mabaadi badan ku dhisan ninkan buurta gurada dheer anigu gaarsiiyay ee gunteeda iga sheemiyay baan gacalka moodaya gurgurshaaga kii aan u raray gabanada u saaray isna keegi soo gowracay baan gacalka moodayay gabadhu jeclaadeen ninkan gaarida u mehershay isna tadii soo guursaan gacalka moodayay gabaygaas runtii waa gabay dheer laakiin wuxuu ku soo gabagabeeyay maraba inaan ku sii dheeraado laakiin waxaan uun kaga xarayaa Puntland waa la dhisnay haddaanan ku jirinna may dhisanteen Sooliya Sanaag iyo Cayn caasimadii baa Garowe laga dhigay madaxweynadii bay iyagu qaateen dhulkii iyagaan ku wareejinay saa hore kugu sheegayna dhulkii iyagaa laga qabsaday 7 sano suganay dhulkii inay soo qabtaan lascaanood kaliya soo qabtaan waxaanu soo xaqiijinay markaan baaritaan sameynay in Cabdi Muuse iyo Riyaale ay kala saxeexdeen Itoobiya iyagoo jooga inay dhulkii ku wareejiyaan lascaanood ee Somaliland noomay sheegin markaanu sugnay ka qoonsanaan u kacnayna noomay deynin xitaa iyagu ee dhabarkay naga dhufteen kantaalka dhaxdeedii bay qaybiyeen kala qaybsanaantan la sheegaa waa wax la abuuray wax jiray maaha iyagaana ka dambeeyay maamulka anu reerka ma sheegay laakiin maamulka ka dambeeyay maamulkuna sababta ugu dambeeyaan waan garanaynaa waayo dhaqan ahaan baa lagu kala duwan yahay waqooyiga waxaa laga isticmaalaa win-win situation adiguna guulaysaana aan guulaystay si isu kaabinaa laakiin meeshan waxaa ka jira tasfiya wax la yidhaahdo okay waa win-lose situation oo ah anigu madaxweynaha Puntland anaa qaadanaya khayraadka anaa qaadanaya when it comes to federal la wayna anigu haddana noqdaa prime ministerka wasiiradana anigu qaato taladiina aniga la weydiiyo adiguna raacid noqotid de anigu uma anaan baran waxaas anigu dad xoraan nahay dad kayaan jira taariikh laba nahay geeska Afrika iyo adduunkaba kule diyaaradii ugu horeeyay Afrika lagula dagaalamay nagama suuroodo marmarka qaarkood ragciil cadab ka dooray wax badan oo aan kugu jirin waxaad u qaadanaysaa waxa lagu wado waayo dabargo ma aqbali karo in generation kan soo socda ay ka haraan 50 sano asaagood ilmaha Garowe iyo lascaanooda jooga maanta isku mustawa maaha isku xuquuq maaha isku service maaha haddaanu 10 sano dambe soo socoto aan sii eeganana ilmahan wuxuu hoostiga doonaa ilmaha Garowe jooga ma aqbali karo walidaalika waxaan leeyahay the biggest strategic mistake ever aanu galay haddaan reer khaatumo waa markaanu Puntland xudusanay waqtigaana noo fasiray waxaa ku cadeynaya kaga baxaya marka prime ministerka iyo madaxweynaha Puntland oo ilmaadeera intay Garowe isugu yimaadeen midna federaalka mataliyo midna Puntland aan wax ka dhisnay ee nabaabisay mataliyo xildhibaanada yadii isu saxeexayaan waxaa ugu bolale waxaan daayankood hore u dhicin yaa duraad curiyay war sideeba adoo walaalkayo garabkayo wax ka sugayay aad u gaadhaa mustawa inaad gaarsiiso anoo nool qarnigan oo la joogo xilligan aad ogtahay information age in wiil Usmaan Maxamuud iyo wiil Umar Maxamuud reer khaatumo masiirkooda dadkii ka talin lahaa federaalka aad isku wareejisan idinku annaguna aanu daawano oo ka noqono inspectors ma dhacayso waxaan qabaa anigu haddaba Puntland inta ay noo geysatay Somaliland noo ma geysan maalinkaanu khaatumo abuuray ilaa hadda haddaanan mubaalaqa badan xitaa aanan gelin waxaan oran karaa 75% dhibka nagu dhacay waxaan noo geystay Puntland marka wada hadal ma furm karaa Somaliland waa su'aal fiican Cabdiwali Gaas markii la doortay ninka la yiraahdo golaha fulinta ku jiray G10 ku jiray Salebaan Cabdi Madoobe Salebaan Ducaale wuxuu raadiyay emailkiisa khaaska ah email buu qoray wuxuu ku yiri waan ku hambalyeynaa madaxweyne ilaahayna hawsha ku barakeeyo anagu khaatumaanu abuuray sababta kaliya oo abuuray waxay ahayd markaanu soo aragnay lascaanood oo aan marnaba aan soo celinin gacantiina ka baxday walaalayaal haddii aad lascaanood iyo dhulka naga maqan aad soo celinaysaan diyaar baa idin nahay Google baanu idinku imananaa waa wada hadlaynaa waxba isla meel dhiganaa haddaysan ahayn oo aad arrinkaa sameynay waana tay u badan tahay buuri aanu malaynayo waayo nimankii ka horeeyay Maxamuud Salebaan laftooda sameyn kari waayeen wax badan oo jirana waan ognahay hadda oo soo baxay dhabarka xabadda aad nagaga haysaan naga daaya
cabdiweli kaas wuxuu soo qoray hal sentence waxa aan sameeyay eega oo iigu tixgeliya laakiin hadalkayga tixgelinina bisha gudaheeda buu wuxuu wasiiro u magacaabay laba ka mid ah saddexdii madaxweyne meertada ahaa axmed karaash iyo beende buu wasiiro ka dhigtay ficilku yidhi daawadana wakaa chinesku waxay yidhahdaan hal sawir baa wuxuu u dhigmaa kun erey yaasin adaan kuu dhibay iyo daawadayaashee bal adigu fasir haddaba waaya intaa waxaan ku darayaa waxaad tidhi wadahadal puntland maxaad ula furweydeen puntland iyo khaatumo dhul ma kala haystaan dad isku isir lagu tilmaamay ahaayeen dowlad baa puntland laga dhisay garoowe 1998kii dowladdii weli waa uga dhisan tahay dad annaga ah oo ay ku shaqaystaanna waa la joogaan laakiin somaliland waxaa nagaga xidhan wixii oo dhan siyaasaddii baa nagaga xidhan dhulkii baa nagaga xidhan ganacsigii baa nagaga xidhan waxa weeyaan somaliland weeye meesha annaga wadahadalku uu ku habboon yahay oo ciidankoodii baa dhulka iyaga jooga oo maamul ay soo dhiseen baa xukuma dhulka barhkiis soomaad garan marka puntland tuulo xataa reer khaatumaa ma joogtaba marka wadahadalka naga dhaxayn karaa muxuu yahay maxaan uga baahannahay baahidii aan u qabnay markaan u sheegnayna waa nagu qosleen ma garatay marka ujeeddadu waa maxay dantaadu meesha ku jirto waa inaad ka raadsataa maaha inaad gidaar cidlaa garaacdid waxaan leeyahay meeshii saxda ahaa ee wadahadalka ama dagaalku naga dhaxayn lahaa waa somaliland tiibaanuna maanta u soo jeesanay marka waxaan leeyahay puntland waxba yaanaan ku daalin wixii taariikhda qoraysa waxay wanaag iyo khayr iyo shar sameeyeenba marka laakiin nimanka maanta taladu noo taallo iyaguna ay noo baahan annana aan u baahannahay waa somaliland wey waayahay cabdirashiid xambus inagoo gabagabadii ku dhow shirka wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana lagaga hadlay arrimaha khaatumo ma malanaysaa wada heshiiska aad wada heshiinaysaan somalilan iyo khaatumo inuu soo dhaweynayo in iyada laftigeeda isteed ahaan ay dowladda soomaaliyeed u aqbasho si aanay hawshaas u sii socon anigu waxaan ku leeyahay mabda'a khaatumo waxba iskama bedelayaan soomaaliyana waad og tahay awoodda waxaa lagu qaybsaday 4.5 waa oo qabiilo weeye moogta 4 beelooda waaweyn iyo 5 oo ah beelihii kale la sugeeyey marka waxaanu xaq u leenahay ninka maanta doonayo inuu dambabaso ama meel kale u mariyo dee waxa weeye colaad sukayuun buu abuuray iyo wixii civil warki Soomaaliya ka dhacay marka taas wax weyn aniga inay ka bedelayso mabda'a khaatumo uma arko waaye cabdirashiid macalin sinu la socono wax la soo xulaya xildhibaanadii dowladda federaalka ama guriga sare ha noqoto ama koosa ha noqotee sida ay u qaybsadeenna shirkii wadatashiga waxaa lagu qaybiyey in somaliland iyo puntland gobolka sool iyo sanaag ay ka soo geli karaan halkaas sidee aragtaan u aragtaan as khaatumo maxaase aad ka samaysaan arrinta waxaanu ka samaynay waxa hadda aad nagala hadlaysay oo aad naga wareysanaysay anagu markii anagoon istaahilin la yidhi maxfalada siyaasadeed iyo jaangoynta masiirka ummadda soomaaliyeed ee qarnigan soo socda oo dhan barnaamijkaad ka istaagaysaan oo waxaad noqonaysaan daawadayaal anagoo xisaabtanay xisaabaadkaygu waa farabadayn annaga insha allahuna waxaanu rajayn doonaa inaanay naga benisin oo xisaabtaasi ay noo hagaagto waxaa hadda ka socda xamar shaqo kuma lihin barnaamijkaanu ka joognaa martibaan ka nahay laakiin kama ahaan doono si kale aanu hadhow u farsamayn doonaa runtii geedi baanu gallay dheer oo ahayd midnimada wadanka iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo sharafteeda waana lala garan waaya number 1 eedaa waxaa qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda xasan ayaa iska leh oo runtii aan oran karaa wuxuu sameeyey khiyaanatul cutma buu sameeyey khiyaanatii ugu xumid oo qof qaran hogaaminaya uu sameeyo ayuu ku sameeyey khaatumo keliya kuma sameeyna qaranka soomaaliya ku sameeyey sidaa daraaddeed waxaa ka socda xamar ee annagana la ka saaray markaan ra'yigayga ka qaato anigu shimbirayo heesa un baan u arkaa oo horaan kugu hormariyo cabdiweli iyo cumar cabdirashiid xuquuq anigu aan leeyahay oo aanay weligood dhaxalin intay isdhaxal siiyeen inay isa siiyaan oo xamar kaga sheekeeyaan waa mustaxiil taas waa qodobka labaad waxaan qabaa xamar baa u baahan in la badbaadiyo adigu waxaad ka hadlaysaa somaliland baa go-aya shacabkan iska jaahwareeray 25 sano propagandadu ku socotay waxba yaan waqtiga lagu lumin laakiinse waxaa muhiima meesha la raba in la saxo oo dhibku ka taagan yahay muqdisho weeye madaxweynuhu markuu cadaado yimid madaxweyne dr cali khaliifna uu la joogay isagoo hor fadhiyo wuxuu yidhi waan soo dhameeyey federalism waxaana ii hadhay hiiraan iyo shabeellada dhexe that means maxay tahay wadanku waa labo waa waqooyi iyo koonfur
anigu waxaan mas-uul ka ahay koonfur waqooyi iyaga u taallaa waa clear message waa qaranka ninkii calankiisa hayay aan u dhimanaynay u baaba'aynay weeye waxaa lacag adduunka la bixinayana shilin nagama soo gaaro 3 sano 4 sano 5 sano halganka aan wadnayna gabdhaha yaryar waxa ay shaqeeyaan iyo inamada iyo dadka duqeyshinka 20 iyo 50 sano ku wadnay dad intaas sameyn karaan ma jiraan لأجل qaranka Soomaaliya baan ugu wadnay ta qarankii anagu inta kuma difaaci karo kii qaranka ba hayay haduu duminayo faqankii lahaa dabada hayade ma kacayso iyadoo ay taas tahay haddana waxaan ku soo gabagabaynayaa anigu waxaan qabaa haddii wada hadalkan hadda kama hor dhacayo qaabka loo geli doono waxa laga geli doono waxa laga heshiin doono waxaas oo dhan waa unknown weeye sax bishaarooyin anigu hadda ma wado sacab buuxana ma hayo shacabkaygana u sheegi maayo waa tajrubo waa trial weeye waa error baa ka dhici kara waa lagu saxmi karaa laakiin waxaan anigu dadka Soomaaliyeed ee halkan hadda dhageysanaya u sheegaya waaba laga yaabaaba badbaadada qaranka Soomaaliyeed inay ka soo baxdo meesha ka soo baxdo way haan inuu ku dhow ku doomiye gabagabadii su'aasha aan ku weydiinayo waxa tahay dad badan ayaa aaminsan shirka kale Khaatumo iyo Somaliland in lagu qaban doono Djibouti ka kalena lagu qaban doono Imaaraadka maxaad kala socotaa arintaas inadeero walaalo waxaan ku leeyahay horta inaan ka hor dhacno maaha waxa la sameeyay guddiyo hoosaad arimahan dardar geliya oo cidii runtii hoosta ka soo bislayn karta la isla raadiyo marka shirarka istaba socda way dhacayaan qasab bilowba ahaa intii kulankii caynaba oo ah in la istuso goodwill labada qoloba inay rabto inay hawshan ka qayb qaadato annaga dhexdayada inaan tala midaysan meesha isugu keeno hadaan nahay reer Khaatumo ayaa qodobka koowaad noo muhiimsan intaanan cid kale u tagin marka hadda qodobka haganka koowaad annaga noo banaan maanta waxa weeye inaan dhexdayada midayn intaan wada aragto waxna lagu eedeeyaa waa kala fiirsantihiin oo qoloba meel bay ka daaqaysaa laakiin waxaan doonaynaa mabda' siyaasadeed oo dadka iyagu ka midaysan yahay concessions inta la sameeyo in maaragtay marka hore anagu aan isla fahanno dabeedna aan wixii masiirka ummadda reer Khaatumo ku dabayn lahaa meeshii laga aadi karo ama wadanka gudihiisa lagu hayo gobolada dhexdooda ama meel kale ha lagu jiheeyay oo meesha yoolku waa kaas weey Cabdirashiid macallin sidaan ula soconno magaalada Buuhoodle ayaamaha laftigooda waxa ka jiray shacabkii oo saxaafadda ka soo diinay waliba saraakiil leh anagu ma aaminsan in Somaliland laga hadlo ahna sheegana inuu kaga baxo Ali Khalifa within 12 hours magaalada gudaheeda sidee u aragtaa horta Dr. Ali Khalifa dawareer Buuhoodle waxa joo ogub qof magaaladiisa qof kale oo lamida uu leeyahay ka baxa ma dhacdo إن شاء الله أنا ما دعي دونتو غير بوهول أنت ويك مهم زيهم تعايش السلمي بين بوهول وواحد وين الكفانا قف كسته حقلته سي وزير هو ولي بقى كوكا كان واحد الله وحي قيمون هيني آيات شوقي لو داعي بسبب تعايش السلمي لو داعي تعالى خلف من حوالي خاطوي 95 to 99% تذكر غير بوهول أنا غير خاطوي وي عبان كران سوء تفاهمنا way dhici karaan waliba waxa anu ogahay gacanta ku jirta in dad fara badan lacag loo qaybiyay oo laga dhaadhicinay rabshooyin sameeyaan oo ay uprising ku sameeyaan okay dadka waxay yiraahdeen waa fiican tahay okay arrinkan aniga qodaydu kuma faraxsanin ma ana filayn maxaa idinku haysaan garowayna ka imanayeen lacaga waxa hoos diray garowe okay garowe haddana dadkiina inta sano wax u haynin madaxweyne ku xigeenka reer Buuhood waligii meesha intuu wax ka qabtay mashaariic ka fuliyay ana meesha xukuuma calan Puntland ka taagay si adduunka u sheegay ma jirto therefore kalaam faadi ma shaqeynayo ummadani dad bay u ogmatay hawshani Ali Khalifa kaliya kuma aha baarlamaan baa la ansixiyay golo wasiiriyo xukuumadda la ansixisay golo deegaan Buuhood la leedahay waxaas oo dhan waan ognahay waxa la akhrinayaa asalka fa ama zabad fayadhab jufa dad xortu way tagaysaa أما ما ينفع الناس فيهم لكن واحد ذاتك أنفع يا سقمية وحن لا هاي ولا لا هذا إقرار لي ذاتك غير خاطمة وحن أشياء وح الله له وحي صورة قالها ومداس انتجرتي كذا إيه مصير كذا إيه مستقبل كذا اللي وصوا جيو وأنا كشخيننا أنا قاعد كل هذا ليا وحن كم إذا جودي كفرس ماذا ولا هذا لا كم إذا إيه مدينته
waxaa dhaqtan cali khaliif madaxweynuhu intuu iskaga tagrifali doono isagu siduu rabo ku aadi doono oo weliba dad fara badan oo hore looga bartay ma dhici doonto insha allahu arrintani waxay noqon doontaa arrin cilmi ku dhisan daraasa ku dhisan wadahadal ku dhisan concession ku dhisan yaa talahaya ku dhisan dhinac kasta laga eego masiirka reer khaatumo iyo masiirka reer somalilan iyo masiirka soomaaliba la dhex dhigo laga dhex eego muraayadda caadifadda laga saaro ummadii soomaaliyeed jiritaankeedii lagu soo celiyo waayo anagu waxaanu hadda sugaynay 5 sano 5 sano markaan eegnay xamar maanta wax ka soo socdaa ma jiraan garo wax ka soo socdaa ma jiraan therefore waxaad manuuma islaanahayba war armayba xaggan ka dhawada in laga badbaadiyo ummadda soomaaliyeed runtii waxaan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad masiirka ummadda waxaa fiican inay urursan tahay reer khaatumo qof kastaana taladii ma qaadan karo taladina dad yar baa gacanta loo geliyey dadkaasna dad ehelkeed ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin war waxaan dad aqoon la gacanta ku haya dhinac kasta ka eegaya dan gaara kama lihin wax naga gala mooyaane waxaanu sugaynaa marka haddii ilaahay qadaro in wada hadal nadiif ah hadduu dhaco oo xuquuqdayadana aanu ku raasanayno jiritaanka ummadda soomaaliyeedna lagu sugayo xuquuqda shacabka reer somalilandna lagu sugayo win-win situation ah geeska africa haybadda aanu ku lahayn iyo sharaftiina aan ku soo celinayno hadafka wada hadallada aan ka leenahay waa saas tafaasiisha hadda ma gelayo laakiin waqtigaa ka jawaabi doona laakiin hadda waxa noo muuqda iyo waxaanu ka wada hadalnay iyo waxyaalaha hadda aan isla gaarnay ilaa hadda waxaa aniga aan u arkaa inay tahay tallaabooyin fiican oo xagga hore loo qaaday arrinta buuhood la rabaa inaan ku daro wax yar 2 minute buuhoodliniyo arrinteedu waa sensitive weeye waayo dadka reer buuhoodle juhdi waxa gaaray dhaawac weyn dagaalka kalshaale waad xusuusataa ciidanka somaliland baa intuu soo dul fadhiisay isagoo u heelanaya beelaha isdhinac degaan baa dagaal culus meesha ka dhacay oo dad badan ku leeday xabaalihii weli meesha yaaliin markay maqlaan dee reer buuhoodle somaliland baa lala hadlaya dowladdii ma garanaysaa xoogaa waxay u baahan tahay dhaawac tir in arrintaa lagu sameeyo oo dadka reer buuhoodlena dareenkooda aan runtii la yasin ee loogu garaabo dhibaatadii soo gaadhay hadday dhinaca somaliland noqoto iyo hadday dhinaca khaatumo noqoto iyo hadday nin kastoo waxgarabta noqotoba waxa weeyaan shucuurta reer buuhoodle waa mudan tahay inay xanaaqaan inay somaliland baa lala hadlayaa cadifada inay ka qabaan garbay u leeyihiin dhibaatadii dhacday awgeed waayahay aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinku mahad celinaynaa wakhtigiina aad noo soo hurteen halka aad nagala socoteen waa Carlson TV oo idinkaga imanayay magaalada Minneapolis waa anigoo ah Yaasiin Ducaali waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هذا ما سنتهي waxaa nagaga xidhan wixii oo dhan siyaasaddii baa nagaga xidhan dhulkii baa nagaga xidhan ganacsigii baa nagaga xidhan waxa weeyaan somaliland weeye meesha annaga wada hadalku uu ku habboon yahay oo ciidankoodii baa dhulka iyaga jooga oo maamul ay soo dhiseen baa xukuma dhulka barhkiis soomaal garan marka puntland tuulo xataa reer khaatumaa ma joogtaba marka wada hadalka naga dhaxayn karaa muxuu yahay maxaan uga baahannahay baahidii aan u qabnay markaan u sheegnayna waa nagu qosleen ma garatay marka ujeeddadu waa maxay dantaadu meesha ku jirto waa inaad ka raadsataa maaha inaad gidaar cidlaa garaacdid waxaan leeyahay meeshii saxda ahaa ee wada hadalka ama dagaalku naga dhaxayn lahaa waa somaliland tiibaanuna maanta u soo jeesanay marka waxaan leeyahay puntland waxba yaanaan ku daalin wixii taariikhda qoraysa waxay wanaag iyo khayr iyo shar sameeyeenba marka laakiin nimanka maanta taladu noo taallo iyaguna ay noo baahan annana aan u baahannahay waa somaliland wey waayahay cabdirashiid xambus inagoo gabagabadii ku dhow shirka wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana lagaga hadlay arrimaha khaatumo ma malanaysaa wada heshiiska aad wada heshiinaysaan somaliland iyo khaatumo inuu soo dhaweynayo in iyada laftigeeda isteed ahaan ay dowladda soomaaliyeed u aqbasho si aanay hawshaas u sii socon anigu waxaan ku leeyahay mabda'a khaatumo waxba iskama bedelayaan soomaaliyana waad og tahay awoodda waxaa lagu qaybsaday 4.5 waa oo qabiilo weeye moogta 4 beelooda waaweyn iyo 5 oo ah beelihii kale la sugeeyey marka waxaanu xaq u leenahay ninka maanta doonaya inuu dambabaso ama meel kale u mariyo dee waxa weeye colaad sokayuun buu abuuray iyo wixii civil warki Soomaaliya ka dhaxdhacay marka taas
wax weyn aniga inay ka bedelayso mabda'a khaatumo uma arko waaye cabdirashiid macalin sidaynu la socono wax la soo xulayaa xildhibaanadii dowladda federaalka ama guriga sare ha noqoto ama hoose ha noqotee sida ay u qaybsadeenna shirkii wadatashiga waxaa lagu qaybiyey in somalilan iyo puntland gobolka sool iyo sanaag ay ka soo geli karaan halkaas sidee aragtaan u aragtaan ase khaatumo maxaase aad ka samayseen arrinta waxaanu ka samaynay waxa hadda aad nagala hadlaysay oo aad naga wareysanaysay annagoon istaahilin la yidhi maxfalada siyaasadeed iyo jaangooyinta masiirka ummadda soomaaliyeed ee qarnigan soo socda oo dhan bannaankaad ka istaagaysaan oo waxaad noqonaysaan daawadayaal annagoo xisaabtanay xisaabaadkaygu waa farabadayn annaga insha allahuna waxaanu rajayn doonaa inaanay naga benisin oo xisaabtaasi ay noo hagaagto waxaa hadda ka socda xamar shaqo kuma lihin bannaankaanu ka joognaa marti baan ka nahay laakiin kama ahaan doono si kalaanu hadhow u farsamayn doonaa runtii geedi baanu gallay dheer oo ahayd midnimada waddanka iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo sharafteeda waana lala garan waaya number one eedaa waxaa qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda xasan ayaa iska leh oo runtii aan odhan karaa wuxuu sameeyey khiyaanatul cutma buu sameeyey khiyaanatii ugu xumid oo qof qaran hogaaminaya uu sameeyo ayuu ku sameeyey khaatumo keliya kuma sameyna qaranka soomaaliya ku sameeyey sidaa daraaddeed waxaa ka socda xamar ee annagana laka saaray markaan ra'yigayga ka qaato anigu shimbirayo heesa un baan u arkaa oo horaan kugu hormariyo cabdiweli iyo cumar cabdirashiid xuquuq anigu aan leeyahay oo aanay weligood dhaxalin intay isdhaxal siiyeen inay isa siiyaan oo xamar kaga sheekeeyaan waa mustaxiil taas waa qodobka labaad waxaan qabaa xamar baa u baahan in la badbaadiyo adigu waxaad ka hadlaysaa somaliland baa go-aya shacabkan iska jaahwareeray 25 sano propagandadu ku socotay waxba yaan waqtiga lagu lumin laakiinse waxaa muhiima meesha la raba in la saxo oo dhibku ka taagan yahay muqdisho weeye madaxweynuhu markuu cadaada yimid madaxweyne dr cali khaliifna uu la joogay isagoo hor fadhiyo wuxuu yidhi waan soo dhameeyey federalism waxaana ii hadhay hiiraan iyo shabeellada dhexe that means maxay tahay waddanku waa labo waa waqooyi iyo koonfur anigu waxaan mas-uul ka ahay koonfur waqooyi iyaga u taallaa waa clear message waa qaranka ninkii calankiisa hayay aan u dhimanaynay u baaba'inay weeye waxaa lacag adduunka la bixinayana shilin nagama soo gaaro 3 sano 4 sano 5 sano halganka aan wadnayna gabdhaha yaryar waxa ay shaqeeyaan iyo inamada iyo dadka duqeyshinka 20 iyo 50 sano ku wadnay dad intaas sameyn karaan ma jiraan لأجل qaranka Soomaaliya baan ugu wadnay de qarankii anagu inta kuma difaaci karo kii qaranka hayay haduu duminayo raqamku ilaha dabada hayade ma kacayso iyadoo ay taas tahay haddana waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu waxaan qabaa haddii wada hadalkan hadda kama hor dhacayo qaabka loo geli doono waxa laga geli doono waxa laga heshiin doono waxaas oo dhan waa unknown weeye sax bishaarooyin anigu hadda ma wado sacabo buuxana ma hayo shacabkaygana u sheegi maayo waa tajrubo waa trial weeye waa error baa ka dhici kara waa lagu saxmi karaa laakiin waxaan anigu dadka Soomaaliyeed ee halkan hadda dhageysanaya u sheegaya waaba laga yaabaaba badbaadada qaranka Soomaaliyeed inay ka soo baxdo meesha ka soo baxdo way haan inuu ku dhow ku doomiye gabagabadii su'aasha aan ku weydiinaya waxa tahay dadyo badan ayaa aaminsan shirka kale khaatumo iyo Somaliland in lagu qaban doono Djibouti ka kalena lagu qaban doono Imaaraadka maxaad kala socotaa arrintaas adeero walaalo waxaan ku leeyahay horta inaan ka hor dhacno maaha waxa la sameeyay guddiyo hoosaad arrimahan dardar geliya oo cidii runtii hoosta ka soo bislayn karta la isla raadiyo marka shirarka isdaba socda way dhacayaan qasab bilowba ahaa intii kulankii caynaba oo ah in la istuso goodwill labada qoloba inay rabto inay hawshan ka qayb qaadato annaga dhexdayada inaanu tala midaysan meesha isugu keeno haddaanu nahay reer khaatumo ayaa qodobka koowaad noo muhiimsan intaanan cid kaleba u tegin marka hadda qodobka haganka koowaad annaga noo bannaan maanta waxa weeye inaanu dhexdayada midayn intaan waad aragto waxna lagu eedeeyaa waa kala fiirsantihiin oo qoloba meel bay ka daaqaysaa laakiin waxaanu doonaynaa mabdac siyaasadeed oo dadka iyagu ka midaysan yahay concessions inta la sameeyo in maaragtay marka hore taladii anagu aanu lahayn gacanta waxaanu u gelinay garoowe markaanu gacanta u gelinay waxaa isu jawaabaya nin Hargeysa jooga iyo nin garoowe jooga oo aan metelin shacabka halka degan waxaanu weynay codkayga wax muujiyo oo xataa adduunka u sheegay dhibkan haysta oo iyagu ay ku heshiin markaas
kadib waxaanu markii ugu horreysay sameynay NSUM urur la oran jiray oo markaas Cismaan Badawi iyo ay ka ahaayeen odayaal oo justi ay ahayd oo kaliya warsida codkiin u baxaaba waan ka soo gudubnay SST baadana la sameeyay waan ka soo gudubnay kadibna khaatwa la sameeyay waxyaalaha marka haddaba ku cusub dadkayga waxaa ka mid ah oo laga dhaadhiciyay dad fara badan oo ay ku khaldameen markay masiir noqoto in aan qof khaatuma ah ama qof uusan runtii masaa'il masiiri ah sida in lala hadlo Soomaaliland oo kale inay tahay lama taabtaan taabuu oo wax xujoobay qofkii Soomaaliland la soo qaada hadal baynama faroole markuu waxa garowga qablaha ka ahaa Hargeysa nabad sugudiisa secret service-kiisa ninka haysta iyo Soomaaliland bilbil wada fadhiyi jireen Hargeysa marka dagaal ka dhaco urur oo kale wuxuu oran jiray argagixisa la dagaalanta Soomaaliland wuxuu ku oran jiray dadkayga walaalaha ah xamar marka la joogo alliance ma aha hadda uu musharax yahay codadka ugu badan ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka filaya waxa weeye waa nimanka waqooyi ka imanaya ee Hargeysa inay codka dhan siiyaan oo xuluf leeyahay Hargeysa waa tuu tagay isagu nimanka garowa jooga waxaa boqolkiiba boqol ay heshiis ku leeyihiin Soomaaliland in aan khaatumana jirin dadkaasina marna masiirkooda ay ka tashan maxaa marka ii diidaya anigu in aan masiirkayga iyo destinationkayga aan kala hadlo dad walaalaha iyo darisnahay oo dhaqan naga dhaxeeyo oo ka dhigay taabuu in aan ka hadlo oo aan ka hadli karin looga dhigaya oo ka garowa jooga aan uga hadlaya nimanka garowa jooga ee u dhashay mandaqada Sool Sanaag iyo reer Khaatumo the only thing oo ay ku guuleysteen waxay tahay inay halka la fadhiyaan waxa uu loo socda ilaa dhaywan Hargeysa therefore qofka shacabka waxa laga yaabaa dad badan oo iyaga ay si gaar isugu xiran yihiin inay ka dhaadhiciyaan waxaan idin sheegnay Hargeysa u socdeen oo haddaan u soconana Hargeysa waa dhul Soomaaliyeed oo umma Soomaaliyeed dhaqan iyo diin iyo waxa naga dhaxaysa dan wax badan baanu ka wada hadli doonaa iyaga u baahan in loo gurmado anaga u baahan in loo soo gurmado qaranka Soomaaliya gurmad nooga wada baahan waxaasoo dhan anaga cidna marti uga noqonayn baanu waxaanu leenahay waanu la hadlaynaa cidna uga dhowna ma jirto inaan isfahamno waanuna isfahmaynaa haddaanu si sax u wada hadalno waana bilowga hadda aanu ma ballan qaadaya waxyaalo fara badan oo soo socda ma ballan qaadaya laakiinse bilowga hadda aanu galnay ma aanan xujoobine waajibna saaraa un baa haddaan khaatwana gudana way Cabdirashiid saas haddaan ku siraaco wada hadalka Soomaaliland la galaysaan imay sax tahay miisan ahayn arrinta ay midnimada laga hadlayo imaan iyaguna ka tanaasulin imay go'aan idinkuna aydan ka tanaasulin imaad midnimada raacdaan si hawshaasi ay soo waafajinaysaa dad nin baa yiri waraga soo socda maxaan kan inahnaa markaas waxay inagu yiraahdaan been wax ka oran doonaa waxyaalo waxa weeye wada hadallada marka la gelayo qawaacid bay leeyihiin number 1 maxaynu doonaynaa inaynu horta inagu aynu hor dhigno maxaynu iyaga ka filaynaa maxaynu inagu qaadan karaa maxaa rar layda oo aynan jari karin ummadeena maxaynu ku qancin karaa iyaguna dad bay leeyihiin anagu dad baan leenahay qol kastana duruufo iyo dan gaar ah wadataa waxyaalo liis fara badan baa noo qoran oo ay ugu horeyso ilaa iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyad baan ka saaran iyagana waxa ka saaran mas'uuliyad waxa weeye xanaaq baa laga yaabaa in dad fara badan oo dadka waqooyiga Soomaaliland hadda ah in la geliyay iyo wixii dhacay in la buuxiyo dadkii dadku inay careysan yihiin iyo inay masiiri gaaraan way kala duwan tahay annaga ba shacabkaygu wuu xanaaqsan yahay oo maanta inaanu Soomaaliland oo dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay siyaabo fara badan ummadda tacaddi ugu sameysay xuquuqdeedii u duusiday lacag fara badan oo adduunka de waxa la bixiyo charity-gaana aan u tiirinayno inaanu la hadalno dadkayga dhib ku tahay laakiin waxaan u bareernay in aanan aqbali karin xaaladan anagu aanu ku jiro Soomaaliland ku jirto inay saa ahaato hadaan anagu hadli karo weyn cid wada ka jirto iyagana waxa laga filayaa diyaaradan Hargeysa la saaray dadkan yar ee generationka ay loo akhriyay si loo mideeyo nabada loo sugo khuraafaadka Soomaaliland caybka laga dhaadhiciyay waxaas oo dhan in la qubo oo reality-ga wax lagu dhiso Nelson Mandela 27 years ninkii xabsiga galiyay intuu gacanta soo qabtay wuxuu kaale ila dhiso maamulka si aan u wada jiro win situation waxa loo baahan yahay waxa weeye in la qubo wax allaale wixii caadifad iyo qusab balaada ummaduna xaqiiqada wajahdo si marka geeska Afrika marka aynu macna uga yeelano waayahay gudoomiye Cabdirashiid sideen la socono sida Cabdirashiid ba sheegay shacabka Khaatumo waxay u sheegtay imaane marra aan yeelaynin go'itaanka iyo midnimada Soomaaliya sidii ku sameysatan ay saahay inay dhulka difaacayso inay midnimadii ka shaqeynayso Soomaaliland dadkeeda wuxuu u sheegtay 20 sano iyo ka badan buu sheegay ee ku akhrinaysi inay ka go'een Soomaaliya inay yihiin dawlad la ixtiraafay inay baasaboor leeyihiin sidee labadaas dawladood u wada hadli karaan oo u kharajin karaan haday wada hadlayna say dadkooda uga dhaadhicin karaan inay nin walba teedi kale
uu ka tanaasuli karo anu waxaan taaganahay sidaan kaga warhayo oo aan kalsoonina ku qabo madaxweyne cali khaliif inuu iyo odayaasha kale talada dalka haya aan ku kalsoonay inay yeeli karaan waxa weeyaan waxaa la eegayaa war masiirka reer khaatumo SSC dadka degan xagee buu ku jiraa xagee baa iyaga dani ugu jirtaa xagee baa noloshooda ugu jirtaa mustaqbalka dheer iyo ka dhowba goolku waa kaas goolku ma aha Soomaali weyn iyo Somaliland goolku waxa weeyaan danta reer khaatumo xagee bay ku jirtaa weey Somaliland bay ku jirtaa miya meesha ku jirta ayay ku jirtaa danta khaatumo ma garatay marka barigii hore halganka maxaa loo galay dadka reer khaatumo waxay soo arkeen inay dalkooda taladiisa iyagu madax banaanadaan oo ay nidaamkii dawladda iyagu ay iskooda u dhistaan tiina way jirtaa marka waxaan ugu bishaaranayaa dadka reer khaatumo inaan khaatumo isdhiibin ee meeshii dani ugu jirto maanta anigu de walaalkaama tegin waan danaystay weeye ujeedadu ma ogtahay marka ninka Soomaaliyeed 25 sanadood Soomaalinimada igu hilin waaya calankii buluug khaatuma iyadu rabta hadda inay la godo Somaliland mise Somaliland ayaa iyada laftigeedu rabta midnimada Soomaaliya yaa labadiina soo dhawaada ma khaatuma soo dhawaatay mise Somaliland horta saad ula socotid ba Somaliland iyo reer khaatumo waa dad isku dala isku deegaana oo dhinac yaala weligoodna wax waliba ka dhaxeeyeen marka wada hadalka ay maanta fureen go'niinka heerkiisa la islama gaarin ama wali maaragtay heerka talaabada looma gudbin hadda waxa weeyaan bal horta in hostility la yara joojiyo oo wada hadal la bilaabo macaamil la bilaabo iyadoo laba maamul la yahay taasaa guula moogta oo dadkii shakiga laga kala saaro iyaguna ay markaa kalsooni helaan annana aanu kalsooni ka helno imika waad ogtahay gobolada Sool ciidan aad u far badan baa 13 goobood baa ciidanka Somaliland fadhiya meel kale oo Somaliland dhulka sheeganayaan ciidamo inta laga fadhiyaan ma jirto marka waxaa loo baahan yahay marka hore in la goodwill la tuso wax la yiraahdo rabitaan nabadeed iyagana inay ka timaado weeye annagana naga timaado annagu weligeed rabitaan nabadeed waanu rabnay dagaal maanu doonayn dhulka iyaga ciidamada Somaliland iyada markiiba si ay maamulkooda ugu fidiso keentay saan ku sheeg 13 goobood bay fadhiyaan ciidamada Somaliland imika maanta oo dalka Soomaaliya kamid ah marka iyaga laga doonayaa xagga iyaguna ay muujiyaan wanaag siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed inay nabadgelyo diyaar u yihiin way yani yasin taaf wala oo raaliya markaad leedahay idinka ka tanaasulay wadanka Soomaaliya in la kala gooyo anagu 2012 khaatuma waxaan u sameynay anagu ugu magac daray gol khaatuma oo awal basaligu ahayd isku soo boodka USB midnimada wadanka Soomaaliya in aanu ku ilaalino integrity-ga iyo kala goyn la'aanta wadanka Soomaaliya halkan baan galay aad iyo aad u dheer oo wax nala galay aanay jirin waxaan ku rajo weyneen qarankii Soomaaliya markaa soo noqday oo la amaamuday inuu door facaal ka qaato sidoo hawsha wax uga qaban lahaa anagu colaad uma qabno lalaha waqooyi hargeysa jooga colaad uma qabno dad ehelo degaan iyo dhaqanba naga dhaxayaan weeye laakiin waxaa jira inxiraaf xagga caqadiga ah oo go'itaankan iyo hawlo badan iyo cabashooyin badan oo runtii ay qabaan walaalaha iyaga Puntland waxaanu ka filaynay laftoodu inay hawsha nagu taageeraan maadaama xaaladda aanu ka hadlayno iyagu ay abuureen waayo dagaalkii qabaa'ilka Soomaaliya ka dhacay laascaanood qabiil laguma qabsan laascaanood system dadkii oo degan oo Puntland la yiraahdo oo lala dhistaa gacanta loo geliyay subax baanu soo kacnay Somaliland bay ku wareejiyeen walaalaha marka waxaan ka sugaynay laba qodob number 1 inay magaaladii caasimadii soo celiyaan wadankeena midnimadiisa ay qayb ka qaataan sidii markii hore Puntland loogu dhisay number 2 hadaan samayn karin inay naga caawiyaan marka anaga in aanu ka galgalno oo aanu mustaqil ahaan u istaagno Sool iyo Sanaag iyo Bohol lacayn may sameeyeen waxay sameeyeen in ay tansiiq iyo wada shaqayn dhab la yeeshaan Somaliland dawladda federaalkuna runtii sidaas ka sii fog ay Somaliland garabka u saartay iyo Puntland annagana waxaan ku soo dhacnay meel dhexe qarannimada marka Soomaaliya iyo midnimadeeda anagoon inkarsaneen anoo qaba waliba inaanay Soomaaliya meel kale aadi doonin anoo saa qaba runtii haddana annaga u dhimanay annagana la ku laayay kuwa nagu laayayna waa koonfurta weeye waa Puntland iyo dawladda federaalka wax dawladda federaalka iyo Puntland ay doonayaan iyo Somaliland anagoo laba gobol oo runtii waliba dib uga dhacay 20 sano la soo dhaafay Soomaaliya wixii ka socday anagu uma istaagi karo uma dagaalami karo sidaas oo ay tahayna haddana waxaan qabaa inaan Soomaaliya meel kale ay doonin insha Allah wayahay
aan ku weydiiyo gudoomiye su-aashan intaan aan u gudbin cabdirashiid macalin su-aasha aan ku weydiinayaa gudoomiyaha baarlamaanka ee khaatimo mar uu hadlay wuxuu caddeeyey imaan lagala tashan arrintan lagu aadayo caynaba maalintii ka dambeysana iyagoo wada fadhiya ayay shir jaraad qabtay isaga iyo madaxweynuhu miyaysan ahayn shacabkii laftigiisu khaatimo kacdoon badan buu muujiyey imaan waxaan aanay ogeyn lalana socodsiin miyaysan ahayn arrintani arrin degdeg ku ah reer khaatimo ahaan marka dowladda khaatimo loo eego imaan shacabkeedii iyo dowladdeedii laftigeeda aanan ka dhaadhicin wixii intaanay heshiis la gelin dowlad goboleedyo kale soomaalida waxaa ku mahmaadaa hubsiimo hal baa la siistaa horta saad og tahayba wuxuu markay siyaasad saa u xamaasadaysan tahay waxaa loo baahan yahay in la siiyo taxadar badan nimanka meesha laga diray buuhoodle ee wafdiga ah masaafay sii marayeen caynabo iyo buuhoodle waa dhul masaafo ah oo xoogaa loo kala soconayo dhulkana colaadaha ka jira iyo nabadgelyo la'aan iyo xasiloonidii weli dadka kalsoonidii iskuma soo noqon marka aniga waxay ila muuqataa dowladda khaatimo iyo madaxweyne cali khaliif mishankaa uu diray in qarshoodi uu u ahaado si iyadoo aan laga hordhicin wixii aanay dhibaato u keenin oo ama waftigii dhexda dhibaato ugala kulmin ama dadkii buuq markiiba bilaabin iyadoo aan cidiba kulmin qolada kaleba I don't think inay faafiyeen hargeysa markay ka imaanayeen caynaba imaanayeen marka adigu waxaan halkaa ka muuqatay dad isku heelan oo rabay inay markiiba degdeg u kulmaan inay ahayd iyadoo cali khaliif aan ogahay siyaasinimadiisana xamarna uu dhoolatus oo ay u ahayd oo haddaad dafiraysid adeer dal iyo dad baan haystaa meeshaan doono aan u jahayn karo marka runtii gudoomiyaha baarlamaanku maantay wada fadhiyeen oo press conference soo saareen madaxweynihii cali khaliif ku-xigeenkiisii cabdilaahi bacgalule iyo gudoomiyihii baarlamaanka oo wada fadhiya oo mowqifkaas isla qaatay oo taageero buuxda isa siiyey oo yidhi waa raacsanayd tallaabadii maalintu dhow dhacday yaasin adoo iga raaliya haddaan mid ku daro la yaabi maayo dadka sool sanaag iyo cayn reer khaatumo inay mas'aladan ay ka taxafudaan lama yaabayo sababtoo ah qab baa ku jira dad 21 sano ingiriis la dagaalamay dad qaranka Soomaaliya macna badan ka lahaa dad iyaga aan marna la qahrin oo iyaga ay noqon jireen dad runtii talo loo soo celiyo in intay wax isku dayaan haddana wixii sida isugu dayeen ay u dhici weydo may filin inay marka ka hadlaan xaq bay u leeyihiin laakiin meesha waxaa ku jirta hal qodob oo aan rabo inaan runtii iftiimiyo qodobkaasi waxa weeye markii la sacano la qabsaday dhibaatada nagu dhacday waxa weeye iyagoo gabdhaha iyagu wiilasheedu xidhan yihiin xabadda lala dhacayay waxiila may helin marka ninka maanta noogu cadhoonaya Soomaaliland baad la hadlaysan oo la go'aasaan dee walaal uu naga gardaran yahay Soomaaliland ma aha bahalana cunaya waa walaalahayo waa dadkii nala deganaa waa dadkaanu abtiga iyo ilmad isu ahayn waa dadkaanu wax wada cunaynay ma garata ma aha nin maanta garow jooga aan xamar jooga inuu waxa anaga danta noo mar walba oo miiska soo saaro waayahay cabdirashiid macalin aan ku weydiiyo su-aashan dadyood badan ay isweydiiyaan had iyo jeer waxa la yidhahda khaatimo dhinaca puntland ayay had iyo jeer hadallada kulkulo hadday u dhaafin lahayen medias u dhaafin lahaayeen hadday dhinaca kale u dhaafin lahaayeen had iyo jeer waxay diidan yihiin dhinaca puntland waxaana sida ay dadweyne badan ay aaminsan yihiin inay khaatimo laftigeedu dhinaca Somaliland u xaq jirto maxaad qaabka wada hadalka laftigeeda Somaliland buu aadeen aad Puntland laftigeeda ula hadli weydeenoo wada hadalka uga shaqeyn weydeenoo si ay isku soo dhaweysan lahaydeen uga shaqeyn weydeen oo dhinacan kale hadda keenay imaad Somaliland adan instead of Puntland wada hadal la gashaa waa su'aal fiican waxaan runtii anigu oran lahaa ninkii la oran jiray Cabdilaahi Macalin Doodaan baa gabayga leeda garnaqsi markuu tirinayay waa gabay macruuf runtii mabaadi badan ku dhisan ninkan buurta gurada dheer anigu gaarsiiyay ee gunteeda iiga sheemiyay baan gacalka moodaya gurgurshaaga kii aan u raray gabanada u saaray isna kaygii soo gowracay baan gacalka moodayay gabadhu jeclaadeen ninkan gaarida u mehershay isna tadii soo gursaan gacalka moodayay gabaygaas runtii waa gabay dheer laakiin wuxuu ku soo gabagabeeyay mar raba inaan ku sii dheeraado laakiin waxaan uun kaga xarayaa Puntland waa la dhisnay haddaanan ku jirinna may dhisanteen sool iyo sanaag iyo cayn caasimadii baa garowa laga dhigay madaxweynadii bay iyagu qaateen dhulkii iyagaan ku wareejinay saa hore kuugu sheegayna dhulkii iyagaa laga qabsaday 7 sano suganaya dhulkii inay soo qabtaan lascaanood keliya soo qabtaan waxaanu soo xaqiijinay markaan baaritaan sameynay in Cabdi Muuse iyo Riyaale ay kala saxeexdeen Itoobiya iyagoo jooga inay dhulkii ku wareejiyaan lascaanood ee Somaliland noomay sheegin markaanu sugnay ka qowsanaan u kacnayna noomay deynin xitaa iyagu ee dhabarkay naga godfteen kantaalka dhaxdeedii bay qaybiyeen
kala qaybsanaantan la sheegaa waa wax la abuuray wax jiri jiray maaha iyagaana ka dambeeyey maamulka anuu reerka ma sheegay laakiin maamulka ka dambeeyey maamulkuna sababta ugu dambeeyaan waan garanaynaa waayo dhaqan ahaan baa lagu kala duwan yahay waqooyiga waxaa laga isticmaalaa win-win situation adiguna guulaysa ana aan guulaystay si isu kaabinaa laakiin meeshan waxaa ka jira tasfiya wax la yihahdo okay waa win lose situation oo ah anigu madaxweynaha Puntland anaa qaadanaya khayraadka anaa qaadanaya when it comes to federal la wayna anigu haddana noqdaa prime ministerka wasiiradana anigu qaato taladiina aniga la weydiiyo adiguna raacid noqotid de anigu uma anaan baran waxaas anigu dad xoraan nahay dad kayaan jira taariikh labaan nahay geeska Afrika iyo adduunkaba kule diyaaradii ugu horeeyay Afrika lagula dagaalamay nagama suuroodo marmarka qaarkood ragciil cadab ka doore wax badan oo aan kugu jirin waxaad u qaadanaysaa waxa lagu wado waayo dabargo ma aqbali karo in generationkan soo socda ay ka haraan 50 sano asaagood ilmaha garoowe iyo lascaano wada jooga maanta isku mustawa maaha isku xuquuq maaha isku service maaha haddaanu 10 sano dambe soo socoto aan sii eeganana ilmahan wuxuu hoostigi doonaa ilmaha garoowe jooga ma aqbali karo walidaalika waxaan leeyahay the biggest strategic mistake ever aanu galay haddaan reer khaatumo waa markaanu Puntland xudusanay waqtigaana noo fasiray waxaa kuu caddaynaan kaga baxaya marka prime ministerka iyo madaxweynaha Puntland oo ilmaadeera intay garoowe isugu yimaadeen midna federaalka mataliyo midna Puntland aan wax ka dhisnay ee nabaabisay mataliyo xildhibaanada yadii isu saxiixayaan waxaa jo ugu bolale waxaan daayinkooda hore u dhicin yaa duraad curiyey war sideeba adoo walaalkayo garabkayo wax kaa sugayay aad u gaadhaa mustawa inaad gaarsiisid anoo nool qarnigan oo la joogo xilligan aad ogtahay information age in wiil Cusmaan Maxamuud iyo wiil Umar Maxamuud reer khaatumo masiirkooda dadkii ka talin lahaa federaalka aad isku wareejisaan idinku annaguna aanu daawano oo ka noqono in spectators ma dhacayso waxaan qabaa anigu haddaba Puntland inta ay noo geysatay Soomaaliland nooma geysan maalinkaanu khaatumo abuuray ilaa hadda haddaanan mubaalaqa badan xitaa aanan gelin waxaan oran karaa 75% dhibka nagu dhacay waxaa noo geystay Puntland marka wada hadal ma furum karaa Soomaaliland waa su'aal fiican Cabdiwali Gaas markii la doortay ninka la yiraahdo golaha fulinta ku jiray G10 ku jiray Salebaan Cabdi Madoobe Salebaan Ducaale wuxuu raadiyay emailkiisa khaaska ah email buu qoray wuxuu ku yiri waan ku hambalyeynaa madaxweyne ilaahayna hawsha ku barakeeyo anagu khaatumaan u abuuray sababta kaliya u abuuray waxay ahayd markaanu soo aragnay lascaanood oo aan marnaba aan soo celinin gacantiina ka baxday walaalayaal haddii aad lascaanood iyo dhulka naga maqan aad soo celinaysaan diyaar baa idinahay Google baanu idinku imananaa waa wada hadlaynaa waxaan isla meel dhiganaa haddaysan ahayn oo aad arrinkaa sameynay waana tay u badan tahay buuri aan u malaynayo waayo nimankii ka horeeyay Maxamuud Salebaan laftooda sameyn kari waayeen wax badan oo jirana waan ognahay hadda oo soo baxay dhabarka xabadda aad nagaga haysaan naga daaya Cabdiwali Gaas wuxuu soo qoray hal sentence waxa aan sameeyay eega oo igu tixgeliyay laakiin hadalkayga tixgelinina bisha gudaheeda buu wuxuu wasiir u magacaabay laba kamid ah saddexdii madaxweyne meetada ahaa Axmed Karaash iyo Beende buu wasiir ka dhigtay ficilku yiri daawadana waka Chinese waxay yiraahdaan hal sawir baa wuxuu u dhigmaa kun erey yaasin adaan ku dhibay iyo daawadayaashe bal adigu fasir hadaba way intaa waxaan ku darayaa waxaad tiri wada hadal Puntland maxaad ula furweydeen Puntland iyo khaatumo dhul ma kala haystaan dad isku isir lagu tilmaamay ahaayeen dawlad baa Puntland laga dhisay garoowe 1998kii dawladdii wali waa uga dhisan tahay dad annaga ah oo ay ku shaqaystaanna waa la joogan laakiin Somaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسن ميل كستا او اد جوجتان halkani waa Carlson TV ee magaalada Minneapolis hadaba maanta halkan waxa iigu martiya hadii aan ka soo bilaabo dhinaca bidixda Cabdirashiid Xambuusi oo ah gudoomiyaha Khaatumo ee USA iyo waliba dhinacan ka soo xiga Cabdirashiid Macallin Faarax oo kamid ahaa asaasayaashii G11 Khaatumana ku asaasay magaaladii Taleex haddaba waxaan weydiin doonaa su'aalo badan laakiin intaan su'aalaha u guda gelin waxaan weydiinayaa shir ay kaga qayb galeen magaalada madaxda Kenya ee Nairobi ayaan waxaan weydiin doonaa bal waxa ka soo baxay iyo shirkaasi wuxuu ku saabsanaa
bal aan u gudbo cabdirashiid xambuus oo ah gudoomiyaha. cabdirashiid, shir ayaa kaga qayb gasheen magaalada Nairobi. shirkaasoo idinku socday maalmo idinku socday. shirkaas muxuu ku saabsanaa? yaasiin aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda Calson TV casuumadda noo fidisay. waana arrin muhiim ah in dadka loo shaaciyo shirka Nairobi ka dhacay ujeedadiisii. shirku ujeeddo fiican buu lahaa iyadoo magaca Khaatumo lagu tagay meesha oo la isaga yimi caalamka dacaladiisa kale qaaradaha Yurub iyo Mareykan, North America, Canada iyo dhulkan aynu joogno. Ali Cabdirashiid baan kaga qayb galay. Carabta iyo dalka Soomaaliya gudihiisa dad ka yimi oo inkastoo cid kastoo la filayay inay tala ka keeni karto sida Khaatumo arrinteedu meeshay maanta taagan tahay hore looga qaadi lahaa ayuu shirka ujeedadiisu ahayd iyo wada tashi buu ahaa. shirka dib wada tashiga Khaatumo sida Soomaaliya arrimaheeda. marka shirku tashigaasi waxaad ka wadaa Khaatumo qaabkii ay siyaasad ahaan u dhaqaaqi lahayd miya? Yes. waayahay su-aashaada aan sii dabagalo. markii aad shirka ka soo baxdeen kadib waxaa dhacay in madaxweynaha Khaatumo Ali Khaliif Galeyd uu rag wasiiraa u soocay inay ka qayb galaan shir Somaliland iyo ka dhaxayn doona iyo Khaatumo ayna ku qabteen magaalada Caynaba. kaaliftiisan ku soo hadal qaadeen shirarka Nairobi kaga qayb gasheen mise waa shirarka qodobo badan baa lagu falanqeeyay oo wax waliba ay ku bees garaysan yihiin Khaatumo. golaha wasiirada ee Khaatumo waa joogeen. wasiir baa joogay oo runtii talada iyo dawladda mas'uulka ahaa. madaxweyne Ali Khaliif isagu up to date buu ahaa every minute shirku soo socdo iyo qodobada la isku hayo iyo waxa ka soo baxay. marka shir dawladdu ka maqan tahay ma ahayn. go'aanka ka soo saarayna ka soo baxay ama juhdiga la gelinayaba waxa in dawladda lagu taageerayo ama tala lagu kordhinayo ama wixii wax qabadaha ee laga geysan karo lagu kordhinayo buu shirku ahaa. marka madaxweynuhu dawladdan isaga awood u leh inuu hadduu meel tagayo ama wada hadal sameynayo ama dawladdu sidee u howlgalayso waxay ka mid tahay shaqooyinka ay u xilsaaran yihiin. taa wax yar ku daro dawladdu iyada u egman fulinta iyo waxay qaban lahayd. laakiin shirkaas inta badan waxa lagu lafagurayay waxyaalaha structure-ka iyo masiiriga ah iyo waxyaalaha mudan in la qabto oo xukuumadda lagu baraarujinayo iyo wixii aanu ku kabi karro maadaama aanu dad waxaan muddo dhan ku soo jiraynahay meelo badan isaga nimid iyaguna runtii ay aad iyo aad gudaha ugu mashquul yihiin in wixii aan ku kabi karana aan ku kabno talo waxyaalaha masiiriga qaabeynteedana aanu talooyin ku garin. waayahay cabdirashiid macalin aan su-aashan kugu xijiyo sidee u aragtaan jiilabanhaan in madaxweynaha Ali Khaliif Galeyd uu ku dhawaaqo inuu wada hadal la geli doono Somaliland? horta walaal Yaasin jiilaban hadda ma jirto, mar hore jirtay. hadda dad odayaalaha oo tala bixiyaanu nahay. madaxweynuhu saan haddaba kuu sheegay xukuumad weeye isaga madaxweyne ka baarlamaan baa jira structure iyo haykel qaran baa meeshii ka jira. iyagaa dadku u wakiisho kalsooni u siiyey inuu arrimaha day to day-ga u fuliyo. ama haddaad leedahay tegitaanka Caynaba oo runtii aan odhan karo wax aada u weyn maaha. waa arrin yar oo ku kooban oo arrin khaasa ku kooban oo ah in wada hadal in la furi karo in la caddeeyo oo aan wax intaa dhaafsanayn aanay jirin. waanu ku taageersannahay. horeyna mawduucan in badan baa lasoo daraaseeyey qoraallo badan xitaa shirka Nairobi waa ka soo saaray guddiga mideynta iyo wada hadallada. u daadegi maayo waxyaalaha waaweyn hor yaalla la raacayo laakiinse madaxweynaha iyo xukuumaddu go'aankan ay qaateen ee Caynaba ku tageen annagu haddaan nahay dadkii hore iyo odayaashiiba waa ku taageersannahay. waayahay gudoomiye Cabdirashiid sidee u aragtaa adiga laftigaagu in wada hadalkaasi uu ka furmo Somaliland iyo Khaatumo? horta waxaan kuugu bishaaraynayaa shirkii Nairobi qodobadii la isku raacay ama laga soo saaray waxa ka mid ahayd in Khaatumo ay la geli karto wada xaajood cid kasta oo dani kaga xidhan tahay oo danaha Khaatumo fulin kara ama hore u wadi kara dhinac kasta ha noqoto. dhinac xidhiidh beelaha kale ama maamulada kale inagu xiga ha noqoto, dhinaca Itoobiya ha noqoto, dawladda federaalka wax weyn kaga xidhan yihiin oo dawladdii qaranka u ah ummadda Soomaaliyeed. marka halka go'aamadii laga soo saaray bay ku jirtay oo dawladdan lagu dhiirigelinayay inay wixii wanaag keenaya inay la gasho wada hadal. marka de shirkaas sidaa wuxuu daba socdayba go'aankii ka soo baxay. runtii midda kale waxaan kaloo ku darayaa tegitaanka Caynaba
timingkiisuna aad buuba u fiicnaayo xamar iyadoo falaqadii lagu jiro dowladaha Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa iyo baarlamaankoodii iyo wixii oo anaga hadaan nahay reer Khaatumo aan idinoo fadhiin miiska halka wuxuu muujiyay shucuur cusub oo anaga maaragtay xuquuqdayadii marka lagu cadeynayo waayahay gudoomiye aan su'aashan ku sii raaciyo sida aan ognahay Somaliland waxay ku dhawaaqday inay ka go'ayso Soomaali inteedii kale sida Khaatumo lagu yaqaan Khaatumo hadii jab wax ka shaqeynayay midnimada Soomaaliya haddaba